الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شركة جرائد ما أنت تسكوكين يا ري حدونا يا دولة ريموت كلا هضو وحرمها سكان بداية وبدن كوي كسابسين سنة بري هي سنة قبل كسنة بقى وحقنا وأن أرمى بدنا ويسكت بدنا عايشين marka hore maalmahan iyo maalmo dhaweyd wax la sheegay ciidan ka goostay meesha sanaag bari dadku haddaanay mesela ana xogaal wahayn waxa laga yaabaa waxaan ciidan badan goosanaya maxay yihiin la yiraahdo hadoon horta dadkeena ka dhaadhiciyo waxani waxay yihiin waxa gobolada ka qaraqamaysan ciidamo badan oo qaarkood 25 sano qaramaysnaayeen oo deegaankoodu fadhiya wax hawlo oo ay qaranka u qabtaan aanay jirin hawlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan haddana waxaanu siinaa mushaar inagoo eegana waxyaabo badan weli intaa ay joogeen wax hawla وهولكلدا كسعودة ودنك وحبك ما يفولين حتى تيدور شوين كي وحنا في الخماية قبل ونهلكوكم بينكم مزروفا مدوحي كل عدي واحد نقول لوارين بران ودقانكوغي ahayd inay tagaan baan ku amaray waxay noo sheegeen iyaga kuwa Puntland inuu heshiis ka dhaxeeyay oo ayna isku weerarin ay ahayd marka qoladii kale Puntland bay kaga baxday sida aawadeed annaguna aanan weerari karayn وأنا كنت قلنا بيده إذا كان مرة عين بدي لكن واحد تجي سراكيشي وقامنيس واحد هالكا كم مقاطي مدة نريد شو جنب بخيامون يقصدين قرن كنا ما بعنا العق بلاش والله بحيو قفك العق ثلاثين هي وينو بحيل لو حلوسيين لاقوا كقبطة sida ciidamada kale jiidaha jooga oo shaqeeyaan waa inay u shaqeeyaan ciidamada kale meelaha joogaan ninka hadaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaato maaha inuu si joogana maaha waxa la wala sayray intaas oo dhan baan ku eegna waa la sayray kuwa tagay kuwa kalaba ma baahna qaranku inay iska tagaan ba wanaagsan waan ku faraxsanahay inay iska tageen maxay yeelay waxa qaranku waxaan qarashayn oo la fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dadka oo cashuurta dadka laga ururiyay oo ay bilaash ku qaataan ayuun bay qaataan waxay nooga soo noqday inoo fuliyaan ma jiro marka dadka caynkaas oo kale inay ka tagaan oo markii horeba odayaal yidhaaheen noo qarameeya laguma sii jiri karo waxaan leeyahay mahadsan kuwa naga tagay kuwa kale ee ka dambeeyay aan waxba taraynay iska tagaan ba wanaagsan oo loo baahna nim aan waxba qabanaynin inuu lacag umadu leedahay oo cashuur laga qaaday inuu qaato maaha sida awadeed dadku haddaanay fahamsaneen ciidankan hadda naga tagay oo ciidan aan wax marka hore waxba inoogu tarayn waxaan kharash ahayn mooyaane wax faa'iido inoo qabanayaan jirin mar haday caynka tahay kuwa iyo kuwa la mid ah wax iska tagaan amba qaranka u shaqeeyaan لكن عدي المينو قفكو هدو وناغن كو جوغيو وان قادا كرا لكن قفكو ديغرور كو ردايا oo kharash ka qaadanaya hadana wax kala ku daro hada ruux la qaadan kara ma aha meelahay tagayaan Soomaaliland baa ugu nafaqo badan ninkastoo Soomaaliland ka tagana uu ku soo noqdo marka looma baahnaan leh
kuwa tegey looma baahna kuwa kale aan waxba qabanaa amba waanu eri amba iyagaa iska tegi haddii kala qaranka u shaqayni laakiin si la isku dul noolaan maayo mar dambe isku dul noolaasho dambe ma jiraayo taasi waa taa qofka aba una cashuur bixiya amba inu waajibaad qabtaa weeye laakiin qof aan labadiiba qabanaynin haddana dadkaa ku dul noolaanaya meesha ma suurtoobayso taasi waa taa ta kale ee ku saabsan ee sanaag hadda jirtay caara arrintiisa ku saabsan caara wuxuu ahaa korneyl ka tirsan ciidamada waana ogyihiin ciidamada way yaqaanaa nin dhib badan oo dhibaatooyin badan sanaag ka geystay buu ahaa halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhnaa isagoo 4 nin loo haystay dilkood rag baa ololeeye oo ninkaa la sii daayaa layidhi weli kiiskiisii sidii buu yaallaa ee maxkamadda waxaa yirtay isagoo joogaa haddana baanduulo laga dhigay halkaa markuu tegayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexdoo fadhiista haddana waa ka tegay Puntland dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasna ka tirada 10 qof kama yara qaar hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shacab waxaan arkaya dad uu doodaya aba sanaag kula kulmay ninkaasi la iska daayay waa geesi goor buu noqday nin qaran nin ummad islaam xasuuqay inuu geesi noqdo in la qisaasa bay ahayd si isagana dembiga ilaahay uga dhaafo oo dadkuu laayay loo qisaasa bay ahayd laakiin in loo qaato geesi anu waxaan u arkaa ana shakhsiyan inay tahay dembi ka u doodayaana hadduu wax u tarayo dembiga uu sameeyey ha laga jaray inuu ogolaado laga jaro maxkamad la saaro laakiin iska socow dad baan laayay waxaan doonaan sameeyey ciidan baan laayay haddana iska soco anu waxaan u arkayaa khalad qarankuna waxa weeyaan sharci buu leeyahy sharcigaa ina kala hagaa qofkii dembi galay in maxkamad la saaro sharcigaa dee odhanaya marka waxaan leeyahay dadka u doodaya caare u doodaya waa dembiil caare waa dembiilo qaran oo weliba ku dhiiran hadda oo isla geesi baa tahay inuu dad laayay arrintaasina waa taa marka dadku haddaanu xaqiiqda aanu la fays karayn oon xaqiiqda laga leexleexdo dhibaatadeeda leedahay waxaan leeyahay ciidamada idaga goostay dan idinma jirin ee xoolihiin bay cunayeen dagaal laydinma gelayn waxna idinmay tarayn kuwa noocaas oo kalena ha ka tagaan qaranka uma baahnayn 25 sanayn iyo siyaa kusoo jiray niman waxba tarayn iyaan meesha joogin taa carrana waa caynkaa oo ninkaasi hawsha waxaasoo dambiga sool buu dhibaato ka galay sanaag buu dhibaato ka badan ka geystay haddii lagu daayo oo geesi la yidhaaho waa dhibaatadeeda leedahay yaa dembiilo noqonaya marka kuma dembiilo noqonaya waa in equal loo haadaa sharciga iyo dastuurka waa in loo sinaadaa shirkayga jirayd wuxuu maagan yahay intaa weeye inaan dadka ka dhaadhiciyo inaanay ciidamadaasi kuwa wax u tara iyaga aan ahayn ninkaasina xaalkiisu caynkaa yahay waanad mahadsantiin